waxaa lagu qabtay safaaradda dowladda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Pretoria xarunta dalkani Koonfur Afrika shirweyne aad u ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay kaasoo loogu magac daray shirweynaha horumarka nabadda iyo midnimada isla markaana looga hadlayay arrimaha geeska Afrika horumarka nabadda iyo isbeddelka ku soo kordhay dhulka Soomaalida ismaamulka Itoobiya. shirkani oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa isugu yimid dhammaan jaaliyadaha Soomaalida ismaamulka Itoobiya ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhalinyaro salaadiin iyo aqoon-yahano. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika sida jaaliyada Soomaaliyeed ee Somali Community Board, jaaliyada Somaliland, jaaliyada Puntland iyo marti sharaf kale oo ay ka mid ahaayeen diblomaasiyiin waxaana lagu taageeray nabadda ka dhalatay deegaanka Soomaalida ismaamulka Itoobiya isla markaana waxa uu ahaa shir lagu sagootinayay lagulana dardaarmayay wafdi heer sare ah oo ka socda jaaliyada oo booqasho markii ugu horeysay ku tagayo gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. shirkan ayaa ugu horeyntii waxaa lagu furay wacdi diini ah oo ku saabsan wanaagga ay leedahay midnimada ummadda iyo nabad lagu wada noolaado waxaana wacdigaasi diiniga ah ka jeediyay Sheekh Cabdullaahi Wali. shirkan oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen maamulka jaaliyada iyo safaaradda Itoobiya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika ayaa waxaa khudbad dheer ka jeediyay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ismaamulka Itoobiya ee dalkani Koonfur Afrika Mudane Inshaar Maxamed Doolaal. khudbadan wuxuu gudoomiyuhu kaga hadlay marxaladihii kala duwan ee jaaliyadu soo martay xilligii la aasaasay ilaa iyo halka ay haatan taagan tahay. waxaa kulankan hadallo qiiro badan ka jeediyay xubno muhiim ah oo ka tirsan jaaliyada iyo diblomaasiyiin ka socday safaaradda dowladda Itoobiya. ugu dambeyntii ayaa waxaa jaaliyadu ay fariin codsi ah oo ku socota dowladda Itoobiya u dhiibtay wafdigii oo baxayay dalka Itoobiya waxayna ka codsadeen dowladda ilaa iyo 3 qodob kuwaasoo kala ahaa in la tixgeliyo mudnaan gaar ahna la siiyo jaaliyadaha dibadda ee u dhashay deegaanka, in dowladda Itoobiya aysan wax faragelin ah ku sameynin goobaha cibaadada sida masaajida iyo dugsiyada Quraanka, iyo in aan dhibaato loo geysan cid allaale cidii ay ka muuqato astaan diimeed, in mushaar fiican la siiyo macallimiinta iskoolaadka wax ka dhigta si loo helo bay yiraahdeen arday ay tayadooda waxbarasho aad u sareyso. gabagabadii kulankan ayaa waxaa goobta ka hadlay Danjire Hudur Sarcaay oo ah hormuudka safaaradda arrimaha jaaliyada iyo siyaasadda isla markaana wakiil ka ahaa safiirka safaaradda Itoobiya ay ku leedahay dalkan Koonfur Afrika. waxa uuna bogaadin u jeediyay dadaalka jaaliyada waxaana ka hadlay muhiimadda ay nabadda leedahay wuxuuna sidoo kale ka hadlay xoojinta xiriirka jaaliyadaha iyo safaaradda. si kastaba ahaatee jawiga shirkani ayaa ah mid aad u sareeyay iyadoo ammaanka guud ee goobta uu shirku ka socday aad loo adkeeyay. عبد الناصر صومني تلفزيون عالمي Universal TV Pretoria Koonfur Afrika.